وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن. السلام عليكم دمان شبعان وناكسن وقصدي اللباد إنو كهلين لي قصدين كسو عروري سورة الكهف. ما عرفتها وحاانو شيء كجرين إني تهي قيب لغسور دنبالي جنة لكن هي لاوي وبيراتويو marka aad tuulasla u eegto waxay khasab isha qabanaysaa beer weyn oo qurxoon waxa dhankeeda ku sii socda laba nin mid ka mid ah waa kii beertiska lahaa oo la dhacsan kabihiisa dharkiisa beertiisa shaqaalaheeda adugun intaa jira xaalkiisa ninka kale waa nin dadka dabaqada dhexa ah oo iska sheekaysanayaan cabaarka bacdi waxaan gaadhay albaabka beerta waa beer haddaad ammaantood ku yaraanayso beerta waxaa buuxu dhaafiyey canab waxaa dayr u ah geed timir oo sidaa ugu wareegsan qaybta dhexe waxaa ka buuxa khudaar iyo midho ubaxaya doogana sheegin adigoo ku jira daawashada waxaa dhinacaaga midig ka dhawaaqaya shimbir taanu aamusin waxaa xagga bidix uga jawaabaya shimbir kale ilaa ay codka shimbiruhu beerta dhan isqabsadaan meelaha sidaa kaaga dheerayn waxa aad ka maqlaysaa codka biyo soconaya waaba webi qulqulaya oo meel kasta oo beertu leedahay maraya guud ahaan waa beer ay yar tahay in la arkay samankan ninkii taajirka ahaa sidaa intuu eegay beertiisii ayuu ku yidhi ninkii kale sidii ayadu sheegtay qaala lahu saaxiibuhu yuxaawiruhu anaa akharu minka maalan waaxasu nafara anaa kaa xoolo iyo dad badan wadakhala jannatahu wahuwa daalimu linafsihi qaala maa adunnu an tabiida haadihi abada wamaa adunnu saacata qaa'imatan walain rudidtu ilaa rabbii la ajidanna khayran minha munqalaba intuu hore u socday ayuu haddana yidhi u malayn maayo beertani inay baaba'ayso macnii inay qalalayso abaarsanayso sidaaynu soo sheegnay beer webigii leh shaqaalo leh sida ay ku baaba'da ama ku abaaraysataa way adag tahay ilaahay waxba lama aha haddii la imaado maalinka qiyaame malaa midka ka khayr badan ayay helayaan ninkii faqiirka ahaa wuxuu la yaaban yahay ninkan taajir bilaashka ah xaalkiisa misaasaa ilaahay loogu mahadnaqaa wuxuu ku yidhi sida ayadu sheegtay qaala lahu saaxiibuhu akafarta biladii khalaqaka min turaabin uma min nudfatin uma sawaaka rajula laakina huwa allaahu rabbii walaa ushriku birabbii axada wuxuu dib u xasuusiyey wuxuu ahaa war waxaad ahayd candhuuf ma waxaad ku gaarowaysaa ilaahii intaa ku leekaysiiyey kuu nimceeyey war haddaba ninkanow anigu ilaahayga cidna la wadaajin maayo ninkii faqiirkahaa wuxuu hadalkiisii raaciyey markaad beertaada soo gashay hadaad odhan lahayd xeelad iyo awood waxaa u sugnaatay ilaahay aniga waday aragtaa waan kaa xoola yarahay ninkii taajirka ahaa sidaasuu eegay dabcan wuxuus yidhi waa kelmad ay ku celiyaan dadka fuqarada ah aan waxba haysan iyo talo dalac bilaasha ninkii faqiirka ahaa waxa uu cadhoobay rabbigii uu caro sheegtay wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa sida ayadu sheegtay macni facasaa rabbi an yuutiini khayran min jannatika wayursil calayha xusbaan min asamaa fatusbaxa saciidan saraqa aw yusbaxa maa'uha qawran falan tastatiica lahu dabaa waxaa laga yaabaa rabbiga inuu siiyo beerka qurxoontaada una u soo dirataada dabaylo sida ay ku noqoto baaba amaba uu darka biyaheedu kaa fogaado oo gunta noqdo aad ba soo darsan kari weydid kii taajirka ahaa intuu dhegaystay habaarkiisii iyo hadalkii uu ilaahay kula baryatamayey ayuu si cod weyn ugu qoslay waxaad sheegaysaa wax suurtagal noqon kara maaha oo kale. 24 saacadood kadib waxa ay beerta ahayd siduu ku habaaray ninkii faqiirka ahaa. ninkii taajirka ahaa meel shalay ayuu taagnaa isagoo u qaadan la tani beerteedii maaha. waxay u ekaatay beer aan sanado la farin laga shaqaynin. shaqaalihiina marba dhinac ay u ordiyeen. waxay isku dayeen inay dib u noolayaan laakiin way ka qusteen. xoolihii shalay iyo dadbanaantii uu ku faanayey waxba uma qaban karaan siduu ilaahay yidhi walam takun lahu fi'atun yansuruuna wamaa kaana muntasira. ilaahay waxa uu leeyahay yuqallibu kafayhi calaa maa anfaqa, yacni beertii bay la yaabayeen sida ilaahay u galay
inay dib u nooleeyaan bay isku dayeen. Manigu wuxuu u qaadan laayeen beertan tiisata calaa maa anfaqa wahiya khaawiyatun calaa curuushiha. beertii waxaa soo qarash laga galay oo sidana u dambaysay imisaa lagu lahaa ilaahay af kala baxa. almuhim wuu ka shalleeyey, wuxuuna yidhi yaquul yaa laytanii lam ushrik birabbii axada, hoogaygii ilaahay haddaan u shariikeyn lahaa. ma garanaysaa meesha laga raacay ninkan taajirka ah? sheekada aayadda lagu bilaabay wa kaana lahu tamarun faqaala saaxibihi oo yuxaawiru. halkaasaa laga raacay ninka. yaysan ku sirin waxyaabaha kuu suurto galay iyo heerka aad gaadhay, oo yaysan kuu qarin siismada ilaahay uu ku siiyey, awoodda uu ku galladay, maskaxda uu kugu abuuray. sidoo kale ma garanaysaa naxariista ilaahay ku jirta qisadan? ilaahay waxa uu toosiyey qalbiga ninkan oo uu tusiyey inaan ilaahay waxba la ahayn waxa uu sheegaya. ilaahay baa u suurtageliyey inay shaqaale uga shaqeeyaan inay beertu qurux badnaato. ilaahay baa u suurtageliyey. ilaahay waxa uu toosiyey qalbigiisa intaanu ku dhiman gaalnimadii ku jiray. ilaahay hadduu addoon la doono khayr waxa uu soo dedejiyaa ciqaabtiisa intii uu joogo adduunyada. ilahay waxaynu ka magan gelaynaa inaan nimcadiisa ku gaarowno. ilaahayna haynoo dembi dhaafo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.